السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين السلام دمانتين ميل كستا جوجتان دمانتين عافماد قبطان نمعي سنتين ميل كستا حلي كستا iyo saacad kasta idin tahay laydu ku xiftiyo. Welcome back soo dhawaada waynaga isku soo noqonay iyo another video. Ilaa waxaan ka rajeynayaa meel aad joogtaan bayna caafimaad qabtaan nimca lana ku jirtaan dhamaan walaalaha gadaan laga soo biiro. Welcome ku soo dhawaada meel idinka jecel yahay walaalahayga hore. Welcome back dhammaantiin. Waa fiidiyowadani taxanaha ha insha Allah bismillaah karin waynu isku dhiirigelinay caawa fiidiyowga kan wiilalow haday wax wiilalana daawadan naga yara qaleeya caawa gabdhaha jirkeena caawa laga sheekeynaya topic maalba meel buu nala geliyaa. waa fiidiyowga waa is dhiirigelinayna waxaynu isku dhaanay in isku kan qurbaha iyo wadamada tan wastiga ayaa waxaan nagu nimi baadi qofka jirka inuu jirka walba tayb gaar ah leeyahay oo magac leeyahay. wadankeena waxaas lama aqoon qalajina loo nijinay heblaayo jir qurux badan bay leedahay, heblaayo way buuranta, heblaayo way bari weyn, heblaayo halkan ay weyn, heblaayo way isku kuusanta, heblaayo waxaas waa butuc. laakiin bini'aadmigu qof waliba tayb gaar ayuu leeyahay jirka. ilaahay qofna qofka kale uma eka dad baa soo shabaha laakiin waxa jirku wuxuu u kala baxashay. hadda markaad meelaha qaybtood aad dharka markaad gadanaysid markaad rabto waxa kugu soo jirkeena qaybka uu yahay aniga iyo adigu isku jirmanihin. toobka adiga kugu qurux badan ama cambuurka adiga kugu qurux badan waxa laga aniga iguma soo baxay la isku jirman ama waa ka daba weynahay wadiga daba weyntahay wadiga dhuubantay qaarka saraad iga dheertay wad iga dhuubantay wadiga yaani qof si uu ogtay. marka hadayna aqoon baadigeena taybka uu leeyahay waxa inagu dhacda inaynu u labisano si inaynu gadano dhar aan jirkeena ku soo bixin. waxaynu u ekaanaa dad aan qaab daran dad dharkii ku dhagan yahay ka balaaran yahay holholf ku yahay dadkii aan isla keen because jid kasta dhar gaar ah ku soo baxa adiga waxa kugu soo baxa aniga iguma soo baxa sababta isku baadi tape manihin isku dhar malihin. soo hadayna u labisan waxa jidkeena badana waxaad arkaysaa gabdhaheena Soomaaliyeed ee social media oo kale hadda waxaad arkaysaa gabadh hilbile oo shay ku degan soo xidhata habeen dhowta aroos Nairobi ka dhacay gabdhihii dharka ay xinaayeen waan yaabay. yacni say ugu deganaa gabdhahaas gabdho qurqurux badan maasha Allah bay ahaayeen laakiin sidii ay u labisnaayeen completely waxay ahayd si wada khalada. dharku waa qurux badan laakiin taybkooda muu ahayn. sidoo kale samarkii waxaan awtaan aroos aaday arooska habeenka ama kaag bay ku soo dhacay anigoo sanado badan aroos Soomaali aaday badan aroos Carabi baan aaday dadku in la isma dhex galo dumarka kaligood. habeenka dumar iyo rag iyo dumar baa isku jiray aroos Soomaali buu ahaa. la waan naxay habeenkii waxa dhacday in dadku aroos markay dumarku markay galaan dadku qaqaawen yihiin toob gacmaha ka go'an waxba la xidhay ku dabada furan tahay dhinac fure. alxamdulillah anigu waan xijaabna weliga madaxayga ma qaawin dumarkii jirkoodii oo dhan banaanka yaalay. aan arkay oo xataa social media ku habeenkan aan soo arkay gabdho cududa waaweyn oo cududii soo qaawiyay it's for xumo xalus weyn oo toobta ugu dhigan xidhay ama cambursa ugu dhigan oo calooshii kuusan tahay dabadiisa ugu dhigan yahay dhinacyada tan ila markaynu cayilnahay qofku isbedelaya moogta ama ilmo markaad dhashid weynaatid age isbedel even ragga dhinacyada soo dhan hilibay naga soo wada baxaya amba walaay shay kugu dhigan markaad xidhatid waxa soo baxaya laabkaagi oo dhan. marka wallahi waan soo shoog lama yaabayo qofku inaanu aqoon body type-kiisa because anigu jirkayga ma aqoonin. dhowr sanadood ka horba markan body type-ka iyo fashion-ka iyo style aan waxa dhex galay ayaa waxaan ogaaday qofka body type-kiisa markaas waxaan ogaaday type-ka jirkaygu uu yahay markaas I can understand laakiin waxaan la yaabay iyagoo og inay sidaa yihiin maxay isu soo qaawiyeen ama maxay usoo xidhan waayeen dhar xoogaa luusluusa. marka taasna waxaa sababta inaynaan aqoon jirkeena ama in aynu u malaynayno shaygan inaynu ku qurux badanay. waxaa jirta shay qurux badan laakiin markaad xidhatid aan baadhiga jirkaaga kusoo baxayn. hadda qayb dadkan styliska markaad u tagtid shay kasta waa lagugu eega waxa lagu leeyahay taasina taybkaaga ma kumaad soo bixin kalarkaaga ma soo saarayo. soo maydin arag hadda khamaarada markaynu xidhano shayna wuu inagu soo baxaa kalena wuu inagu soo baxaa kalena inaguma soo baxo. dharkiina markaynu xidhano waa sidii oo kale. soo insha Allah biidnillaahi karin anigaygaas wallahi inaan aqoon taybka aan jirkaygu ahay alxamdulillah. laakiin hadda markaad baratay waxaad bilaabaysaa in aad jidka ilaahay ku siiyay sida uu yahay dhar ku astura dharka kugu soo baxa inaad xidhatid oo aynu ogaano taybka uu jidkeenu yahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala wax la isku caayo maaha wax lagu faano maaha. jirkeena ilaahay baa ina siiyo qof walbana ilaahay baa si gaaro u abuuray oo ma aha wax inay anigu saasan oo ka heblahay saas oo waa taxaso kala ceeb weeye disgusting weeye qof bini aadam ilaahay abuurtiis inaad ku caydid inaad ku eedaysid inaad ugu faantid waa khalad. laakiin inaynu ogaano taybka uu jirkeenu yahay way fiican tahay. soo insha Allah bismillah karin qoliyaha kan waxay yiraahdaan 5 type oo kala baxa
sidan uu egyahay triangle baa la yiraahdaa picture-kiisa halkaas aan soo saaraya waa dadka qaarka sare u weyn inta hoose u dhuuban soma ay waxaad arkaysaa dad garbo waaweyn leh qaarka sare u soo weyn garbo waaweyn leh qaarka sare u soo laakiin inta u dhuuban dadkaas waxaa laga yaabaa xataa intooda badan qaybtood inaanay naaso waaweyn lahayn inagu markaynu qofkaas qaarka sare weyn waxaynu badanaa u qaadanaa inuu naaso waaweyn leh laakiin waxaa laga yaabaa inaanay naasahayn ay laakiin garbaha tahay waa garbaha iyo halka kan intaasaa isku kusay sidaasoo kale usoo samaysay qaarka sare weyn intana waa soo dhuuban tahay qofkaas markaa muxuu xidhanayaa qofka dharka shaybkiisa kusoo baxaya waa inuu raadsado shaati hadduu xidhanya cabaayad hadduu xidhanya cabaayad kusoo baxaysa oon isku dhejinayn because maadaama jirkaaga uu kala weyn yahay qaybkii saraa weyn qaybtii hoosena way dhuubantahay so insha allah bidmillahi kale inaynu ogaano kaliya ayaa inoo muhiima si aynu u labisano aynu u gadano dhar jirkeena kusoo baxa dadka ma maqli jirta Soomaaliya leeyahay hebel madaxa ilaa lugta wisleegyahay oo dadka sidaas camal ah oo iswada leeg waxa jira dad abtu halka aan leekayn oo dhex lahayn oo wax iswada leeg baa maalkuna hebel uu iswada leegyahay meel ka weyn male qofkaas waxa laga yaabaa daba weyn male garba waaweyn male ama garbaha ilaa luguhu wasleegiyo ama uu isla kuusan yahay ama uu wada dhuuban yahay dhexdiisu ma yara ma weyna jirkiisa kama weyna bowdiyo waaweyn male luga waaweyn male luga dhuudhuuban male wuu iswada leegyahay abku halkaa ama uu isla kuusan yahay ama uu isla dhuuban yahay ama dhexdhexaad bislay laakiin meelo kale waaweyn ma laha waa qof isla eg ama isla wada weyn ama isla dhuuban ama isla dhexdhexaada marka saasay markaa dadkaas u egyihiin kan waa dadka aynu inaguna Soomaaliya nidhaahno hebel dhexdu intaas dhexdu madag maamooyinka Soomaalidu oo jireen hebel dhexdu madag dhexdu intaas laagtay waa dadka baadiga aadka u quruxda badan wadamada tan la yiraahdo oo xataa marka plastic surgery ay dadku isku sameeyaan ay yiraahdaan hour glass qaarka sare u soo dhuuban yihiin waxa laga yaabaa garnaas way leeyihiin calool male dhex yar bay leeyihiin dabay leeyihiin baskoolada iyo bari iyo ama baskoolada marka dadkaas waa dadka kala sococan laakiin waxa ugu badan ay leeyihiin way kala sococan saas ay u kala qorayeen ma sha Allah qaarka sare ama haday doonaan naasaha hada naasayran laakiin waa dad baadigooda qurux badan qaarka sare oo saas soo ah dhexdu yar tahay dabo iyo jid leh ma sha Allah waa dadkan baadigooda aadka u quruxda badan yahay oo la yiraahdo hour glass glass shape baa plastic surgery-yada meelaha la isku qalo oo jirka lagu qalqalo waxa lagu oranayaa sidaas hadaan magaalooyinka qaybtooda tagtid Mareykan dadka dhasaas ay wadeegin dabada halkaas wada joogtaan dhexdu waa dhigic waa yarta qaarkii sare saas u yahay soo wada way waa ma sha Allah laakiin baadi qurxoon laakiin qayb ay ka sii badbadiyeen soo waa dadka Soomaaliya nahno dhex yar ayba u dhaliyay laakiin wadanka lacag baa lagu sameystaa abalka la yiraahdo waa dadka ilaa halka iyagu isleegihiin abalku sida uma kuusna saas oo kuusan waliba waa qaarka sare ma qaarka waxa jira dad ilaa bowdiyaha ilaa caloosha ilaa intaas oo dhan ay soo wada leegtay lugaha inta hoose qayb labadan hadda isku mid maaha kan uu isla kuusan yahay waa wada kuus abalka qofkii tufaaxa qofkan laakiin qaarka sare u soo waye inta hoosena uu dhubay laakiin abalku intaas sare oo dhan baa isleeg waa ma sha Allah waa butuxow hadii adiga iyo qofka sida tan isku soo ma leebisan kartaan adiga iyo qofka sidaas saddexda qof isku soo ma leebisan karayaan isku the same time wada xidhan karaan because isku body shape ma aha so inaga dhibaatooyinka ugu badan ayna haya waa kuwaas because bodygeena ma naqaan qofka naadiya waxay xidhantay saar waxay xidhantay alladna toobka qurux badan ana balisiana na soo gatay waynu soo gadana hadhow ama kugu dhigaya ama ka yaraanaya ama ilin qof dhexdu yar baa loogu talagalay qof dawo weyn baa loogu talagalay qayb qaarka sare u dhuuban baa loogu talagalay ka isku mid ma naqaan so abalkuna waa dadka qaarka sare waa dadka isku wada leego taas oo dhan wada weyn oo isku wada leegtahay ma sha Allah ilaahay baa u sameeyay alxamdulillah dadna waa dadka biirka bahalka bay ogeeyeen waliba kan uu buuran yahay waa soo waayay waa dadka qaarka inta sarena u dhuuban inta barida dadkaas markaas kuwa waxay kaga duwan yihiin dadkan biirka la yiraahdo waxay kaga duwan qaarka inta sare way u dhuuban yihiin waa laga yaabaa inay naasleeyna soo marnaba kuma jiraan waaweyn iyo yarana saa waa loo kala dhasho waana la sameystaa marka dadkan waxa laga yaabaa inay xataa naas waaweyn leeyihiin laakiin qaarkooda sare waxa ka weyn qaarkooda dambe waliba qaarkooda dambena waxa weeye miskaha ilaa barida ilaa bowdiyaha waa dadka bowdiyaha iyo barida leh
qaar ka sare u soo dhuuban yihiin dhexda calool jirkoodu kala shuban yahay laakiin waxay leeyihiin bari iyo oo marka ay cayilaan dadkaas way iskaranayaan dadkaas marka ay cayilaan oo hilibku wuxuu ka koraa barida boodiyaha meelahaas ka kora haday calool yeelato soo kale laakiin badana hilibku dadkaas wuxuu ka koraa barida meel kasta hilibadana cayilo ka konay laakiin hilibku ugu badan halkan uu ka koraya dadka sida kan oo kala ahina badana haday cayilaan iyagana inta sare ilaahay u dhaliyo qaarkood sare kaas uu ka koraa dadka kan sidoo kale shape-kooda soo moogtay mar walba markaynu cayino shape-keeni aynu lahayn ba hilibkii extra aynu ku sii noqonaya soo insha Allah bidmilaahi karin inaga dha ilaah baa inoo wada sameeyay baadhigeena way laakiin waa muhiim inaynu ogaano type-ka aynu nahay si aynu ugu labisano marka social media-da aan ku arko gabdhaheena ma sha Allah dhalinyarada ama hooyooyinka markaynu xirano shay aan inagu soo baxayn kala dhaxan kama hadlayo markaad adigoo qaarka sare u weyn aad xirto shay kugu dhuuban oo gabadh dhuuban loogu talagalay kuma soo baxayo marka body type marka waa aad iyo aad maalinta aad type-kaaga ogaatid waxaad u labisanaysaa jidhkaaga wax ku soo baxa ilaahay baa inoo dhaliyay sidan alxamdulillah laakiin waxa muhiima daas ayaa powerful qofku markuu ogaado type-ka jidhkiisa uu yahay sida aynu ogaano sida meeshanu dhaqaalaha kaga fiicannahay meeshaynu ka daciifkanahay markaad aragtid jidhkaagu sida uu yahay waad u labisanaysaa daadsid soo qofka adiga iyo Sahra iyo Naadiya iyo Faadimo isku dhar ma xidhanay waa laga yaabaa inaynu color-ka xidhano inaynu design-ka xidhano laakiin waxaynu kala xidhanaynaa qof walba body type-kiisa loogu soo galay markaas ayaa jidhkaaga ku soo baxaya oo quruxdaadi soo baxaysa oo labiskaaga soo baxaya laakiin markaad xidhatid qof kale type-ka uu leeyahay waa dhibaato hadda waxa jirto kale fiir rajabeetooyinka ama kanjeliga kanu naqaano hadda waqooyi ama koonfur ka timi dad kanjeliga inteena badan waxa lagu leeyahay adduunweynaha dadku waxay xidhan yihiin rajabeeto aan size-kooda ahayn meeqa sanadood baan xidhnaa rajabeeto aan size-kayga ahayn dadka waa wada cayka jir marka la qiyaasayo waxa lagu fiirinayaa Mareykan oo kale ama meelaha dadka qurbaha joogo kale waxa lagu fiirinayaa marka tagtid meelaha rajabeetooyinka laga fiiriyo rajabeetooyinka meelaha la iska fiiriyo kale waa tigaysa waxa la fiirinayaa garbahaaga size-ka uu yahay ka bacdina naaska size-kiisa kaabka yiraahdaan baa la fiirinaya maxaa jira markaa waxa jira dad naaso waaweyn leh laakiin qaar ka sare u dhuuban dadkaas waxa jirta rajabeetadii naaska markaad heshid waxa laga yaabaa inuu rajabeeto naaskaaga size-kiisa haddaad soo gadatid inuu kii garbuu kaa weynaado oo Soomaaliya dadna rajabeetadii aad rajabeetan xidhan aan xidhayn oo rajabeetadii garbihiisa ay u soo dhacdo naasihii hoos loo dhac marka waa muhiim laakiin markaynu ogaano rajabeetan khalada markaad xidhan tahay halkaas ku go'aysa wallahi anay ugu halkaas ay kala godo nabaraygu yeeshay because size-kaaga ma xidhin waa ku xidheeri uu kugu adag yahay maanta dhasaasaad leedahay halkaas ku kala go'aysa laakiin markaad size-kaaga xidhatid bas gabdhihiina sharaf bay meel u fadhiyaan adig garbihi kuma xanuunayaan marka waa sidaas oo kale body shape-keenina haddii aad xidhatid laakiin rajabeetadii marka waxaan ka soo wado sidan oo kale waxaa jirta dad garbahoodu waaweyn yihiin inan baan beri raacay waxaan isla soo fiirinay rajabeetooyinka meesha la isku qiyaaso inanta rajabeeto kasta oo gabadha loo helo naasaheedu way yaryar yihiin rajabeetadii naasihii marka loo helo laakiin rajabeeto garbaheeda leeg baa la waayay tii garbaha marka la helona naasihii bay ka waaweyn yihiin marka waxay waqti bay qaadanaysaa laakiin waa la helayaa marka rajabeeto kasta ay soo gadato marka dukaamada caadiga haddaana isqiyaasin rajabeeto khalad ay soo qaadanaysaa naaskii waa ka weyn yahay garbihii wuu leegay kii garbaha leekaadana naasihii buu ka weyn yahay marka dhibaato ayaa muddo dhan haysan jirtay saan u wareegana markii dambe long time buu ku qaatay marka laakiin alxamdulillah markaad heshid markaad jidhkaaga baratid markaad rajabeetada size-kaaga aad heshid alxamdulillah garab xanuunkii baa kaa ba'aya rajabeeto fiican baad gadanaysaa oo size-kaaga dhabta ah leh oo aan halkan kaa dhacdhacayn oo halkan labada halkan ku goynayo marka waxyaabahaas oo dhan waa muhiim jidhkeennina markaynu ogaano de waxaynu ogaanaynaa shayga nagu soo baxa haddaan maanta qaarka sare u weynahay cududo waa weynahay shaati igu dhegan ma qaadanayo ila cududii waaweynaa buu soo saaraya waa inaan shati yar xoogaa iga ballaaran aan xidho haddaad mid ballaaran xidhatid waxaa laga yaabaa inaad ku dhex dhacdo ku foolxumaatay soo marka waa in laakiin muhiimaddu waxa weeye inaynu ogaano baadhi jidhkeenna taybka uu yahay meel kasta aynu joogno kabacdi lebis qurux badan bay noqoneen inagoo xijaaban inagoon isqaawin ayaa lebis kugu soo baxaya male haddii kale waxaad noqonaysaa gabdhahan hadda aroosyada aan ku soo arkay oo kale iyo kuwan
waxaad xidhanaysaa shay kugu dhegan markaasaa adigo caloosha soo kuusnaanaysa markaasaa garbihii mid kaaga dhegan markaasaa mid cududii kaaga dhegan markaasaa halka kan laalaab meel dhan oo shaaracana waad joogta magaalada ama soo maraysa ama aroos baa timi xafladii Soomaaliya oo bini'aadmi oo dhan isugu yimaadeen fiidiyooyo laga tubay wallahi maalintidood waan naxay gabdhaha quruxdooda maasha Allah say u ekaayeen laakiin labiskii baa ka wada hadlaysana waxaad leedahay subxaanallah hadda sometimes gabdhaheena heesa waxaan war gabdhaha ayaa usoo labisay waxa isu xiran yihiin kalarkay isu xiran yihiin dharku soo igu dhegan yihiin iyaga dharkay kuma soo bixin waxa weeyaan because ma naqaano ceebna maaha qofku inaanu aqoon anagoo inta qurbo joognay maanu aqoon markaan bartay taybka jirkayga aan kiro bismillaahir rahmaanir rahiim yaa oo ileen kanaanahay ilaa jirkeena waynu naqaana meeshan u weynahay meeshan u yeernay meeshan ayino qof kasta ilaahay baa saa u sameeyay waxa iskuma caayano ila isku caaya khalad weeye laakiin inaynu ogaano taybka aynu nahay weeya kasi aynu dad bini'aadmi u eeg noqono oo ayna wax khalad u xiran wadamadan aanu nimi qurbaha wax kasta magac baa loo yeelay jirkii magac buu leeyahay wax kasta magac bay leeyihiin waxa lagu leeyahay ina way fiican tahay sababta meelaha qaybka marka tagto waxa lagu leeyahay shaygaas kuma shay baad maanta la soo baxaysaa sirroonaysa xiran markaas waxa lagu oranaya kuma soo baxaysid kaladhada qayb bay nagu soo baxaa kaladhaan inagu soo bixin kaladhaa ina damiye inkastoo anigu aanan kala jeclayno kalar kastoo aan ka helo aan gato sidoo doonaha noqdo laakiin waxaa jira kaladha ina soo saara waxaa jira kaladha aan ina soo saarin qofka kalarkiisa ku xiran tahay ma light skin baa tahay maarin madow xigaa tahay qofku wuxuu jecel yahay aniga waxaan aaminsan kalarkaad ka heshid xiro am just dadka caynkaasana kalarkii aan ka helo baan gataa oo qorsada laakiin waxaa jira kaladha inagu soo baxa iyo kaladha aan inagu soo bixin waxaa jira dadka cad kalar ku soo baxa waxaa jira dadka light kalarka dharka madow ku soo baxa waxaa jira dadka brownka kalar ku soo baxa iyo dad kalar kasta uu ku soo baxo kalarkeena ayay markaa ku xiran waxaas ma ogoon hadda guryaheena kale markaynu alaabada dhiganayno meelaha aynu tagno decorationka laga gato waxaad isu raadinaysaa waxa isu kaa match gareeya jirkeeniina ka waran waa inuu isaguna caynkaa soo noqdo maanta ilmahaaga haddaad rabto inaad wuxuu soo gaday kaba laaleeg baad soo gadaysaa Soomaa adu kaba kulaaleeg baad soo gadanaysaa body type keenina waa caynka qof kasta ilaahay baa inoo sameeyay muhiimadu waxa weeye kaliya inaynu ogaano si aynu u labisano aan dharkeenu inooga xumaan waxa jirta bari aan dharka inta soo gatay aan hadda guriga markaan keeno naci jiray isku fiirin jiray bride markaan shayga isku fiiri shayga ila qurux badnaaday aan soo gatay guriga markaan imaado mise qaab darana aan eega la ku fool xumaa halkana sida halkanaasi shayga waan cilay because style-kayga muu ahayn type-ka body-gayga kuma soo baxay laakiin hadda waan bartay shayga waan ogahay way ku soo baxay waa fiirinaya body type-kayga wax anfacaya ayaan gadanaya kaliya oo jirkayga ku soo baxay because maadaama aan ogahay type-ka aan ahay ogowna sidaas oo tahay markasta inuu cayilno jirkaagu isbedelaya waxaa laga yaabaa shape-kaaga inaanu is completely isbedelin type-kii aad u dhalatay laakiin haddaad cayishid qof dhuuban haddaad ahaan jirta cayilatid hilibkaagu meeshii aad u dhubnaan jirta hilib baa koray soo taas caadi weeyaan qofku waad sacadeyn kartaa haddaad rabtid laakiin sidaadii hore ma ahaanaysid taybkay shape-kaagii marka hilibka kore uu isbedelaya waa laga yaabaa completely inaanu isbedelin laakiin wuu isbedelayaa haddaad qof dhuuban ahaan lahayd aad hilib yeelatay ama calool baa kaa soo baxaysa ama dabadii baa ku yaro weynaanaysa ama cududo aanad marka hore lahaan jirin baad yeelanaysa so ugu xilli kasta aynu ama weynaano ama hilib inagu koro body type-kan wuu isbedelaa laakiin haddii aynu ogaano type-ka aynu nahay at least waxaynu ognahay jidhkeenu sida uu egyahay iyo ma aynu isbedelay waxa inagu soo baxaya so insha Allah bidmilaahi kariin sanadka cusub waxaan rabaa inaynu inaga dhan nolosheena wax kasta ka bedelno hadday baadhigeena noqoto hadday labiskeena noqoto hadday dharkeena noqoto so aniga wallahi runtii markaan ogaaday type-ka iyo waxyaabaha kale oo aadka iyo anfaca waxaa kamid ah insha Allah bidmilaahi kariin isagana video ka sameynayo coloriska dharka because dharka waxaa jira kaladha aad isugu soo baxay iyo kaladha waxaa jirta galaasyo markaan qaatay aad noloshayda wax uga bedelay iyo gurigayga iyo style-kayga because kalarkoo kale sida fashionka style-ka markaad rabtid kaladha isku soo baxa baa jira kaladha aan isku soo bixin baa jira jirkeena markaynu ogaano so waxyaabahaasoo kale waxyaabaha ina anfacaya si nolosheenu ay noogu qurux badnaato sababta waxaad ogaataa markaad naftaada habi ku tahay ku faraxsan tahay sida aad u egtahay sida aad u labisatay wallahi noloshaada waxyaaba badan baqaagaaga laakiin markaad ilaada shaygan iguma soo baxo dhar ma haysto shaygan ima ka qaab darana adduunya sometimes sidaynu dharka dhan soo saarnayn waxaynu xidhano weynaa laakiin markaad ogtahay type-kaaga dharka kugu soo baxay style-kaaga waxa aad jeceshahay oo noloshaada iyo xaaladda aad ku jirtid baadhigaaga iyo jidhkaaga iyo noloshaada aad habi ku tahay
يساعد وقتها أذهب كنت الحمد لله تراهد نرشاد وح كستو ويكوف ضادان صابته هب نسكب كان هل كان قلبك وكيماته لكن ما كان هذا أو أنا قصدي كان يوم صوب حي كان ما هيستوسم نسمي وحلقة يا بإننا بدر بحين لكن أفرش كلي أو لا وشركة كوسوبها وكلر كاجا وقروح بدن أتكلم إن أسكب بدل كرتون تستفي عن هب كنتاي إن المليون شيء هاي ستين وميرات كبلوزات كران عادي وكاتسا وقاتل بكود كيه كابلاريه كاديريه كوقابتريه أدلة قابترنا نحسدان وكلا محاول حدا حاجان جيه دي بدنا ورجنا للبحسمة إن شاء الله بإذن الله كرين وحيابا أنا نكره إن كان بدلوي بكمتين ولا شيء إن شاء الله بإذن الله كرين واسكتشست دي رجلي ويان إسنا إذا كنا إن شاء الله بإذن الله كان فكرة دينا لسوء ذاك أنت الفيديو كل ما خير يا دين رجانيا فيديو قال لك تسارة حقي سبحيه صدقة فيديو قال لك بحيه أنت الفيديو كل ما خير يا دين رجانيا السلام عليكم ورحمة الله